munaasabadani ayaa ahayd mid qada sharafa oo uu fidiyey salaadiinta cuqaasha waxgaradka aqooyaanka iyo siyaasiyiinta beelaha uu ka soo jeedo wasiirka cusub ee wasaaradda maalgashiga iyo washaradaha Somaliland Cabdilaahi Cabdiraxmaan Aare waxaana munaasabadani ujeedkiisa uu ku sheegay in ay tahay mid uu wadatashi kula yeelanayo beelaha uu ka soo jeedo iyadoo markii qada sharaftu ay soo idlaatay halkaasi ay ka hadleen salaadiintii cuqaasha aqoonyaankii waxgaradkii iyo siyaasiyiintii ka soo qayb galay munaasabadani qada sharafta ah waxaana ay yiraahdeen Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ismaan Aare waa soo dhaweynaynaa waxaan leenahay ku soo dhawow tolkaagii oo habar cafaan oo halka ku fadhida ee aad wasiirka wahayd waxaan leenahay hambaliyaan leenahay waan ku hambaliyeenaynaa waanan ku ducaynaynaa waxaan leenahay wasiir wanaagsan noo noqo oo ummadda wax tara Soomaaliland wax tara tolka magac wanaagsan soo hooya ilaahay ka dhigaan leenahay wasiirka waan soo dhaweynaynaa waxaan ku leenahay wasiir soo dhawow beelahaagii baad dhex joogtaa waadiga marti qaaday ilaahay sharafa ku yeelo ilaahay kor ku qaado anagu waan ku ducaynaynaa waxaan u mahadnaqayaa wasiirka dhalinyarada ah ee beesha habar cafaana ee cusub isagoon weli xilkii la wareegin casuume beeshiisa horta aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa waxaan leenahay wasiir waxaad keentay tala cusub baad keentay wasiiradii hore iyagoo gaadhiga wato ordayo magacaaban bayna soo jiidhayeen laakiin maanta maadaama aad tidhi beelahaygaan horta maraya horta aad iyo aad baad u mahadsantahay wasiirka waxaan leeyahay ninkii qalin beeselka soo sameeyay wuxuu yidhi ana adkuruka arbacata ashyaa qabla rusulka fil caalam ku yiri afar shay baan ku sheegay qalin beesel intaan adduunyada ku tirin buu yiri qodob waxa kamida adduunyada marka tagtay buu yiri waa lagu dhibi doonaa qof baa ku tuuri doona qof baa ku jabin doona qof baa ku qaniini doona qof baa qalin qor kugu qari doona qof baa si fiican kugu dhigan doona qof baa amaan ku qaadeen facalika bitahammul buu yiri beelaha habar cafaana inta leegad wasiirka u noqotay dad baa wax ka sheegi doona dad baa ku xaman doona dad baa wax ka sheegi doona facalika bitahammul adkaysi yeelo waxa kaloo leeyahay dadka kale wasiirka hawd u noqotay maantana wasiirka sidan u garab istaaglaan falankeega qabano waaga dardaaran maanta waa la suuday joogaa oo la xaman maayo waxaan ku leeyahay aku noqoto way aragnimo wasiir kastaba wuxuu beeshiisa kaga fashilmay oo kaga dhaxbahay way aragnimo ku noqoto adoo kuwa hore daraasad ku sameynaya adoo kuwa hore way aragnimo ka qaadanaya ha ku noqoto maanta mar haddii sidaa lagu dhex fadhiyo adoo dhex fadhido oo lagu soo dhaweeyo oo gacmo furan lagu leeyahay lagu ducaynayo ku soo dhawow aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan ayaan ku soo dhaweynaynaa wasiirku wasiir Cabdilaahi Cabdiraxmaan Aare Cusmaan waliba aad buu u mahadsan yahay maadaama aw maanta isagoo oo aan xilkii qaban sida faarax sheegay aw isugu yeeray beeshii habar cafaan oo dhameystiran marka hadduu yiri isagoo tiradii ku sii socday inuu tirsado ha ku sii duceeyaan haddii uu yiri waajibku dawareerina waa waajibka inuu ducada ku daro soo dhaweyno hambaryada iyo soo dhaweynta waxa loo qabaa ragii hore waxa kula soo dhawow waxa ku dardaaraynaa in ay calooshaadu meednaato waana way meedhan tahay u caafimaad qabta bar cafaan in aad kala xigsiisan anigu de bagii xagga bas yahaade ma ogoli kuna farxi maayo kuma faraxsani inaad kala xijiisato aniga iyo kale waa inay ku midaysnaadaan intaasi kadibna Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dawal oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay wasiir soo dhawow waa kan tolka hadduu aqoonyahan iyo dhalinyarada odayaal waa kan tolka saambaliskooga iyo umuurtoodii xaq baad u leedahay inaad wasiir ka noqoto xaq baad u leedahay inaad tolka hogaamiso waad u dhalatay waxaan ku leenahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba soo dhawow wax kale aad ma helina wixii xaq aad u lahayd intaasina xaq u lahaayeen oo maalmo midkeen qabanaya waa lagula shaqayni waa lagu garab geli haddii ilaahay yidhaahdo waa arrintaa iyadaa waan waxa weeye sidaa u qaasho ay u hadleen dhalinyaradu u hadleen ba ka dhaba waa midnimo waa wadaag waa wadajir
waxaan ku leenahay soo dhawaad aad iyo aad soo dhawaad aad iyo aad baan ku ducaynaa gabagabadii ayaa waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina uga mahad celiyey sida ay u soo ajiibeen qada sharafta uu fidiyey isagoo sidoo kalena qaatay fariimaha kala duwan ee u badnaa dardaaranka ee ay siiyeen wasiirka cusub ee wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha Somaliland Cabdilaahi Cabdiraxmaan Aare waxaana uu yiri runtii qorshaygu maanta inaan xitaa boorame imaado ma ahayn oo sidii uu suldaanka ragii ugu horeeyay sheegaan bari baa horta xil wareejintii ay ku qoran tahay laakiin waxaan haddana mar haddii tolkii iyo safar madaxweynaha gobolkiiba uu jiro inaan haddana idiin imaado aan isbaraarujino in soo dhex joogsado iyo qodobka iigu muhiimsanaa aniga marka laga tago wax walba oo ah ducadiina moogtay inay ducaysan kulay waxa weeyaan waa mas'uuliyad qaran mas'uuliyadda qaranka iyo adeega dawladana sidiisaba lama kala laha waa taa wad ogtii ma filaya maalinba nin baa haya oo qori isku dhiib marka shalay mid baa hayay maanta mid baa hayay qofba meel buuna soo gaarsiinaya marka kii shalay joogay meel buu soo gaarsiiyay kaga tagay wixii uu qabtay wanaagsanaa waan ku amaanaynaa ka jooga maantana meel buu kaga tagay ka imanayna meel buu ka bilaabaya hadii la hayra marka kulay lama kala laha habeeraatee kursiga hadda yani wasiirnimada nimanka dhalinyarada ee habar cafaan ba dhamaantood oo la simana laakiin de calaf iyo qadarku maalinba nin buu siinaya oo nin buu qoray mid uu baan idin ballan qaadi midaan idin ballan qaaday wax weeyaan kursigaasi waa kursi Soomaaliland oo dhan de matalaya magac xumo iyo in la yiraahdo markaan ka tagay waa ninkii inkaar ku dhacday doortay waan ka dadaalay inta halkayga ducadiinuna waa hube ducadiinuna aad u soo badiyo insha Allah ta'ala Maxamed Cabdilaahi Dabshid Kalsan TV magaalada Boorama